water resources in Somalia ay ka shaqeeyaan waxa ay sheegayaan oo record dheer ka sameeyeen waxyaabaha wabiyada Soomaaliya yimaada ee Ethiopia ka yimaasay hoos ugu dhaceen siday sanadba hoos ugu dhacayaan sanad ka dambeeyay hoos u sii dhacayaan si waliba gradual aan ahayn oo rapid ah degdega ay hoos ugu sii dhacayaan biyihii waxa ay ka digayaan oo ka hadlayaan in ugu yaraan 4 dam ama 4 biyo xireen la sameeyay dhowrkii sano ugu dambeeyay laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa hadda ilaa 4 dam oo waaweyn in la sameeyay biyo xireenna waaweyn 4taas biyo xireen waxaa lagu leexiyay biyihii wabiyadaas ayaa la leexiyay dabcan biyaha marka la leexinayo waa marka aan roobku da'aynin oo biyuhu caadi isaga socdaan biyahaas waxaa lagu leexiyaa dhul 100 kilomitir aan ka yarayn ayaa lagu waraabiyaa oo baaxadiisu ayaa lagu waraabiyaa waxay ka hadlayaan qatarta kaloo timaada markii roobabku ka da'an buuraleyda Ethiopia wabigu soo fataho in biyahaas har mar la soo fatahayo oo la soo fasaxayo ayagoo xawli ku socda inay dhulkii oo qallalan imaanayaan hal marna ay kormarayaan waana sababta ay daadadka ba'ani Soomaaliya uga dhacaan arrintan waa arrin alarmin ah waa arrin qatar ah waa arrin u baahan ogaasho iyo ka fikrid iyo maaragtay iyo in mas'uuliyad sare u baahan waxay ka hadlayaan 1968 heshiis la galay Afrika ay gashay OAU ay gashay oo looga hadlayay wabiga Niil iyo biyaha Ethiopia ka yimaada iyo kheyraadka Afrika oo wadamada qaarna ka soo bilowda qaarna dhaxmara oo faa'iido iyo nolol badan ugu jirto dhowr wadan heshiiskii la galay wuxuu ahaa inaan wadan gaar ah uusan go'aan ka gaari karin wadan gaarana uusan ku takrifali karin oo loo baahan yahay sharcina ay tahay in si siman looga wada hadlo afgarad looga gaaro kheyraadkaasna si la isla og yahay looga faa'iideysto loo isticmaalo waxa muuqatay Ethiopia in arrintaas ku xadgudubtay dabcan Nile aad aragteen waxay ka sameynaysaa daamka oo dabcan Nile ayaad aragteen iyo Masar iyo sida Masar uga dagaalamayso Soomaaliya dhibkaas oo kala lagu hayaa laakiin ummadda Soomaaliyeed uma soo jeedo ma oga lama socoto dareenkeeduna ma joogo waxa kaliya og shakhsiyaad yar oo isxilqaamay oo qoraallo badan ka sameeyay waxa kaliya og dadka isticmaala wabiga dadka hiiraan degan dadka shabeelooyinka degan ayaa og iyo jubbooyinka waxay ogyiin biyihiin inay gurayaan waxay ogyiin biyihiin inay sii dhamaanayaan waxaad aragteen oo sawiradan meeshaan ku fiirinaysaan qatarta ay leedahay in biyahan la soo bandhigo yani sida biyaha looga xirtay iyo sida biyahan loola kala wareegay oo looga qaatay Soomaaliya ra'iisul wasaare Abiy asbuuc la soo dhaafay goday ayuu yimid wuxuuna daah furay biyo xireen Soomaaliya ayuu markaas u ballansan yahay madaxweyne Xasan Sheikh inay sarkaan qatarta ay ka digayaan hay'adani iyo qorayaashan iyo journalkan Hydrological Science Journal oo ka hadlayo waxay leeyihiin 70% ummadda Soomaaliyeed 4 sano soo socota cunto xumo ama food security qatar xun ay ku jiraan mana aha wax hal mar dhacay waa wax say u bilowdeen u jiri doon dadka Soomaalida ha beeraha ku tiirsan oo nolosha iyo kheyraadka soo saarka Soomaaliya oo beeraha ku tiirsan waa labadan wabi ku tiirsan yihiin nolosha ummadda Soomaaliyeed labadan wabi ku tiirsanta wax soo saarka ummadda Soomaaliyeed labadaas wabi ku tiirsan haddii wabiyadii la xirto oo waqtigii aad beeraha u baahneed laga xirto waxaad sugaysaa roobka bis roobkana waa lagu soo fatahaya dalagu ka goynaya waxay u baahan tahay Soomaaliya inay arrintan ku baraarugto inay arrintan يعني وزارة بارها وزارة بيها وزارة وحن إن ضد لو صاروا لي بارو وحن لقوا قاد لأنه إثيوبيا هدي أي بقول كي بس ديتن تطبعات ضد كذا كمية جاجة وديليسو أيضا كنت تلقى وسمينيسا وحن سلاقي بحبك من بدلنا إنه وارك وقصوا قاعد يكون قيسو صاحبتني ما تالي سافقرنا ماشي ميالو
macluul iyo gaajo iyo oon iyo dhibaatay dadkaadii la damacsan yihiin wayna wadaan. waxaan kaloon rabaa idan inaan meeshan ka caddeeyo muuqaalkan aad u jeedaan waxaa laga digayaa Ethiopia hadday ciidamadooda badda Soomaaliya ay badda cas yimaadiin meesha la isku haysto la yiraahdo Baabul Mandab Soomaaliya ilaahay daris uga dhigay ahna meel marinkeedu oo yahay wax maaragtay muhiimiyad weyn adduunka strategically oo yahay wax qeyru caadi ah wadamada access ku leh ama dhulkooda oo ama badooda oo yahay saameyn weyn adduunka ay ku leeyihiin hadii badda cas Ethiopia maraakiibteeda dagaal ku yimaado biyaha hadda ay ka xireyso wabigii ka imaanaysay ka xirtay ee ka xireysa waad aragtay markii Ethiopia meelaan ku arkay markii wabigii Masar ka xirtay Soomaaliya ka xirtay ilaahay caqabad wuxuu u keenayaa inay biyo iska soo burqaan oo dhulkii si kala furto Ethiopia si kala furaan dhulkoodii oo volcano iyo daadad iyo dhul jeex ku yimid laakiin waxaan rabaa haddii biyaha ay ka xirtay wabigii ka soo baxay ka xirto adigana aad u ogolaato badda waxaan ku sheegayaa Soomaaliya Ethiopia inay kaaga awood badi doonto badda maraakiibtaada inay celi doonto go'aamada Baabul Mandab laga qaadanayo in adiga wax laga weydiin doono hadday Carabaha noqoto Ethiopia kaaga dhow hadday Israa'iil noqoto Ethiopia kaaga dhow hadday Mareykanka reer galbeed noqoto Ethiopia kaaga dhow haddii Ethiopia markabkeeda oo baddaas yimaado waxaad ogaataa inaadan maalin dambe cid wax ka weydiinayso jirin baddaas muhiimadda ay leedahay waa ujeedaa adduunka inta marta waad garanaysaa maraakiibta trade-ka adduunka iyo shidaalka hadda xoutiyiinta ayaa qatar ku ah muhiimiyadda uu leeyahay maanta dad banu dareensan yihiin ninka biyaha